maxkamad ku taala magaalada Yoviga ee dalka Norway ayaa xukun adag ku riday qoys Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay si guud ahaanba u jabiyeen sharciga iyo xuquuqda daryeelka carruurta ay dhaleen. qoyskan oo ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee degan dalka Norway ayaa xukunkan maxkamadeed uu si guud u wada qabtay iyagoo ka kooban 5 qof oo qaangaar ah, 3 haween iyo 2 rag ah. maxkamadan ayaa ku xukuntay hooyada carruurta dhashay 4 sanadood iyo bar xabsi ah iyo waliba inay bixiso lacag gaaraysa 1 milyan oo Norwegian crown ah, halka aabahana lagu xukumay sanad xabsi ah. xukunkan dhacay ayaa kii ugu adkaa ee lagu qaado qoys Soomaaliya walow dhibaatooyinka kala haysta waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway iyo hay'adda badbaadada carruurta ee loo yaqaano Barnevernet uu xilliyadii ugu dambeeyay ahaa mid xasaasi ah. waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida degan dalka Norway oo cabiraya dareenkooda la xiriira xukunkan lagu riday dadka Soomaalida. waa in islaamay TV-ga qaranka fikirka maanta aan ka hadlayno ee xukunka ka dhacay ma aragtay Yovig حقيقيا معناها حكم كاس هورتو ilmo Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed xaqiiqdii aniga fikirkayga markaan ka hadlo ilmo aan xabad kala soo cararnay oo aan bad la soo marnay oo aan intaas oo dhib la soo marnay aan Norway dalka Norway aan la nimid in aan nacbanaanayno ilmaheeni ama aan u darnaanayno ilmo muuqato aad iyo aad ugu xumahay damiir ahaan iyo ma aragtay dadnimo ahaan iyo aqli ahaanba aad iyo aad ugu xumahay de waalid ilmihiisa lagu xukumayo waa wax igu horeyso aniga noloshayda waa wax igu horeyso ilmuhu dhalay lagu xukumayo waa wax igu horeyso marka Soomaalida iyo dadka mas'uuliyiinta ay jooga Norway waxaan ka codsanayaa arrinkan in kor loo qaado oo ma aragtay si aqliyan iyo maslaxiyan iyo ma aragtay iyo cilmiyan loo galo oo lagu banaan baxin la sameeyo. waxaan hay gabadha magaalada Oslo dalka Norway waxaan aad ugu xumahay maxkamadda cadaalad darrada ah ee maanta lagu xukumay dadka familka ee degan Yovig wax lagu xumaadana waaye runtiina waa wax aad u farxmo badan markasta dadka Soomaaliyeed waa lagu sameeyaa marka dhibkaas waxaan jecelnahay in dawladda Norway ay uga caawiyaan dhibaatada haysto. magacaygu waa Axmed Cabdi Xasan. arrintaas waxaan u arkaa ayaan darro mas'uuliyadana waxaan saarayaa dadka Soomaalida oo aan isku duubnayn. tan labaad waxa weeye dadka oo يعني دولة وجرا ذلك الصومالي يعني إن أي أباب سميان أو مظاهرات يلا سميو أرنتنا لجوهر تجو وحنا لجوهر تيجي كرا إن يعني سكدوبني. ركتها أنا وحيلتها حكم كذا حكم قلة ضواي صوبته هو المهيد الضياع ما جرت هو المهيد الدليس ما جرت وحوا وكحوق بدني وحس على وضن كان وكحوق بدني صوبته صومالي ضد جوجو ilmo dhalay korsaday haysto dawlad waxba ku siinin saan anigu arko kunka corona dawladda dadka siido bay dadka ay ku brasgareynayaan in u baabiinayaan wallahi community hadii la isku tago in wadankan anigu waxaan qabaa inta baasaboorada cigtaan ciyalkan inoo dhaafaan kale carar la soo baxday markaan aan isku fiirnay in la cararo un ma ahane wadankan wax kale oo la qaban kara ma arkin aniga sababtoo community ma balahin badan community leenahay Soomaalidu lama taagteen wax khalad oo aan sameeyno ma jirtaa khalad ma arka aniga qalad dawladda Norway inay isku noqoto oo ilmaheena noo nabad galiyaan aniga xal u arkay. kasoo dadka Soomaalida ee dalkan degan ayaa ugu dadaalaan sidii ay u badbaadin lahaayeen ubadkoodan ay kula soo qaxeen dalkan ayaa haddana inta badan waxaa dhacda in la sameeyo dibadbaxyo looga soo horjeedo dhacdooyinka loo geysanayo qoysaska Soomaalida ee dalkan ku dhaqan. dadka intooda badan ay aaminsan yihiin in dadaalka guud ee jaaliyadeed uu aad u liito. حسن سعيد راستا تلفزيون كغارن كصوماليا نرويج.